dadka qaar baa waxay diinta u fahansan yihiinba sidii sharciga ilaahay u sheegayba ahaynba, ama aayaadka qur-aanka kitaabka ku yaalaba aan waxbaba ka ictiraafsanayn, aanan aqoonayn. waxa weeyaan marka laga hadlayo tafaraaruqa dadka, ama sida dadku ay u kala tegayaan, ama tafaraaruqa meelo badan baa ilaahay ku sheegay. xitaa marmarka qaar baa shirkiga iyo tafaraaruqa ay isku meel taagan yihiin oo isku position ay joogaan, bale tafaraaruqu ka adag yahay shirkiga uu ka adag yahay. waxa weeyaan waa tii nebi haaruun laa ta'khud bilixyati markii uu qabtay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam, laa ta'khud bilixyati walaa bira'si innii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iil. waa suuratu duha uu ilaahay noogu sheegay caza wajal. waxa weeyaan tafaraaruqa waxa weeyaan walaalkay nebi muuse waxa weeyaan uu nebi haaruun uu qabtay garhka, waxa weeyaan uu yidhi maxaad waxa weeye uga qaban weyday arrinkan marka ay sameynayeen reer bani israa'iil ay shirkigan ku dhacayeen, maxaad wax uga qaban weyday. waxa weeyaan ay warkiisa daydeen nebi haaruun ayuu yidhi waxaan ka baqay reer bani israa'iil inay kala tagaan oo tiraad reer bani israa'iil waxaa kala kaxeeyey nebi haaruun, saa darteed dood lama sii furin oo lama odhan hadday rabaan ha kala tageen ee hadda kabacdi waa inaad saa samaysaa lama odhan, bartaas lagaga haray. saa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in tafaraaruqu uu yahay shayga ugu xun. dadka waxaa ka dhexeeya walaaltinimo iyo qadarin iyo xushmad iyo wanaag iyo qiimo iyo qaaya. haddii ilaahay khayr ku siiyey oo wanaag ku siiyey oo amni iyo nabadgelyo aad ku faanaysid inaad waxa weeye walaalkaa la jeclayd oo dhaqaalaha kusoo bixisid oo hantidaada iyo naftaadaba u hurtid sidii iyagu ay nabadgelyo u heli lahaayeen. saasaana ilaahay inoo sheegay kitaabka qur-aanka lagu caddeeyey. waxa weeyaan xadiis nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo wariyey, laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi. waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sheegay, waa xadiis saxiixa oo bukhaari ku yaal. waxa weeyaan ma rumayn qof iimaanna lagama helin ilaa walaalkii ula jeclaado waxa naftiisa ula jecel yahay. haddii aad amni haysatid, nabadgelyo haysatid, qiimo haysatid, qaayo leedahay, ciidan wanaagsan aad leedahay, horumar aad leedahay, wax wanaagsan aad samaysatay oo aad gaadhay, waxa weeye walaalkaa la jeclo. horumarka iyo qiimaha iyo qaayaha iyo faanka iyo waxa aad wadid waa inaad la jeclaataa walaalka, si walaalkaana horumar ugu gaadho beri ka maalin. sidaas ayaa wanaag iyo qiimaha iyo qaayuhu ku jira culimada iyo dadka islaamka iyo dadka wanaagsan iyo dadka qaayaha iyo qiimaha leh. waxaa laga codsanayaa oo weliba ay khasab ku tahay inay sameeyaan oo ka hadlaan haddii ay dacada ka qalaadhay, haddii dabka ka kulushahayo, inay u baraarugaan oo u istaagaan maanta sidii horumar loo gaarsiin lahaa ummadda Soomaaliyeed oo lasugu keeni lahaa min bugax ilaa bari. awalba 4 Soomaaliyeed ay ahaayeen 5 xabo, 5tii midba meel laga tuuray, intii hadhay yartahay haddaa lasii kala wadaa. ilaahay baanu ka magangalay waxaa wada ummaddii gaaladii hadda alliance iyo waxay sameynayaan inay xulufaysi wadaan oo qolo ay rabaan inay xuluf la samaystaan si ay isugu soo dhawaadaan oo waxyaalo fara badan isugu darsadaan. kuwan kale halkan joogeen inay sii kala dareeraan waa wax sharci darro ah oo diintu aysan oran oo ilaahay uusan raalli ka hayn. cidda wadana waa cid khaldan. waxaa laga codsanayaa ummadda islaamka, ciddii caqli iyo ciddii maskax iyo ciddii sultaan iyo ciddii wadaad iyo ciddii awaamir iyo xitaa ra'yi boqolkiiba hal ku leh inay ka kacaan. fadhi uma yaallo. midda aad aakhiradaada iyo wanaagaaga iyo qiimahaaga iyo qaayahaaga aad kaga faa'iidaysan kartid oo aad ilaahay ajar kaga raadin kartid ayaa waxay tahay midda tan maanta loo baahan yahay in laga shaqeeyo oo lacagtaada iyo kharashkaaga iyo waxaad hanti leedahay iyo naftaadaad ku bixisid sidii wax loo hagaajin lahaa oo loo samayn lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan la isugu keeni lahaa meel oo ay wax badan u hagaajsan lahaayeen, u samaysan lahaayeen, ummaddan lagu sii kala kacayn. taas ayaa ummadda ay waajib ku tahay inay ka shaqeeyaan oo waxa weeyaan waajib rasmi ay ku tahay. kan Hargeysa jooga iyo kan Muqdisho jooga iyo Garowe jooga intaba waxay waajib ku ah in ay ka shaqeeyaan horumarka, ay ummadooda u dadaalaan, ayna guntiga dhiisha isaga dhigaan. waxa weeyaan haddii Muqdisho 700 qof 500 qof lagu dilay, Hargeysana ay nabadgelyo tahay ama Garowe nabadgelyo tahay, waxa weeyaan inaad ku faantid oo aad ugu mana sheegatid kuwa dhibaatada ku jira. ilaahay waa arkaya
ummadda islaamka ahayna waxaa looga baahan yahay inay ka kacaan fadhiga, aysan ahayn middaasi mid ilaahay raalli ka yahay. naxariis ilaahayna heli maayaan haddii aysan maanta baraaruga si wanaagsan aysan uga qayb qaadan, oo si wanaagsan aysan walaalahood aysan u garab istaagin, naftooda iyo maalkooda iyo qiimahoodana ku bixinin sidii ay walaalahood u garab istaagi lahaayeen. waandir cashiirataka alaqrabiin baa layidhi Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. horta ka bilow dadka adiga cashiiradaada ku ah oo ehelkaaga. Soomaali waa wada ehel, iyadoo dhan baa xaafad degan, xaafaddii yar tahayd waa isu ehel, in iyagii laisku tirtiraana waa dhibaato. marka waa in halkaa laga fikiraa oo maskaxdaada iyo juhdigaaga iyo caqligaaga inta badan aad gelisaa sidii horumar loo gaari lahaa. waxaa ilaahay inoo caddeeyey oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey, alfitnatu ashaddu min alqatli. fitnadu waxa ay ka weyn tahay qatliga ama dilkay ka weyn tahay. waxa weeyaan fitno ka weyn ma jirto in ummaddu kala tagto, in ummadda lagu baraarujiyey inay sii kala tagaan oo sii kala dareeraan. fitno ka weyn ma jirto taasaana fitnada ugu weyn ee akbar fitna ay tahay tafaraaruq.